Marka aad aragto nambarka 27 maxaa kugu soo dhaca? Inta badan generationka waqtigan waxa ay u garan og yihiin inuu astaan u yahay YouTuber lagu magacaabo Asad Xaajiyow. Nambarka 27 waxa uu uga dhigan yahay Asad Xaajiyow. Ila joog ilaa iyo dhamaadka anaa kuu sheegi doone. Asad Maxamed Xaaji oo loo garan og yahay Asad Xaajiyow ayaa 27kii Agoosto 2012 waxa uu ku dhaawacmay magaalada Marka isagoo jooga goobtiisa ganacsi. Asad Xaajiyow dhaawac soo gaaray ayaa ah in ay ku dhaceen ilaa iyo 6 xabadood. 6daasi xabadood mid ka mid ah ayaa waxay kaga dhacday dhabarka, taas oo sabab u noqotay in uu noqdo mid saaran wheelchair oo aan lugihiisa ku socon 2012 ilaa iyo 2026. Markii uu dhaawacaasi soo gaaray ayaa waxaa xaalad caafimaad loo geeyay isbitaal ka mid ah isbitaalada magaalada Muqdisho. Waqti dheer kadib waxa ay sheegeen isbitaalada magaalada Muqdisho inaysan waxba ka qaban karin xaaladiisa caafimaad. Intaas kadib waxaa la isku afgartay in xaalad caafimaad loogu qaado dalka dibadiisa, waxaana xaalad caafimaad loo geeyay dalka Malaysia ee ku yaala qaaradda Aasiya. Waxa uuna muddo dheer ku qaadanayay dalka Malaysia daawooyin si loola tacaalo xaaladiisa caafimaad. Haddaba dhaawacaas gaaray iyo xabadahaas halkee ayay ka yimaadeen? Dhaawacaas iyo xabadahaas waxa ay kaga yimaadeen qalalaasihii ka taagnaa dalka Soomaaliya 2012. Haddaba aan u soo noqono su'aashii ahayd nambarka 27 maxaa uu uga dhigan yahay Asad Xaajiyow? Nambarka 27 Asad Xaajiyow waxa uu kaga dhigan yahay waa maalinkii uu dhaawacmay 27 Agoosto 2012. Intaas kadib Asad Xaajiyow ma noqon mid isdhiibay oo ka dhacay nolosha. taas beddelkeeda waxa uu hadda yahay number 1 Somali YouTuber. Asad Xaajiyow YouTube-kiisa hadda waxaa ku xiran ku dhawaad 4 milyan oo dad ah, taas oo ka dhigaysa in uu yahay number 1 Somali YouTuber